mid baa la ii sheego yiri kana ka shaqeeya ka Soomaaliga kii baan ku yiri inkaar qabe maxaa meesha ku keenay adiga hooyada abaarada madxarka ma idhiga kii baan u yeedhay war maxaa meesha ku geeyay adiga lacag yar oo badan baa la qaatay biyiri la ilaahi wa inna markaas waxay soo qaadaan ful ubax yar bay soo qaadaan wiilkii gabadhii ay dhaleen iyagoo labaduna ay wataan markaas meel muraayada u dhaxaysa markaas halka buu abi hooyadii ka salaamay gaalo magaalada Burco ma dhex marmarto laakiin sawirka shaashada aan ka aragnay ayaa ina bedelay maanta markaas aan ku maxaa dhacay salaamu calaykum maxaa dhacay markaas da ilaahay baad ka sheekeynaysan ma ha gudaha da ilaahay waxba nama siin buu annaka cadaanku ilaahay wax siiyay magaalo ku taala Suudaan ayaa samarkii hore anigoo jooga qolo reer Djibouti meel tuulay sidan isku abaabuleen oo xogaha kelmad u soo jeedinayay markaan ka baxay meeshii aan banaanka baabuurka fuulayay baan arkay bildhina aad u qurux badan waxaan ku yiri ma bildhinadan aad gashaan xaafadan quruxda badan leh ma yeebay raadaan xaafadan waxa lagu hayaa dadka gagaboobay ee asaasaqay baa dalkan lagu hayaa halkan oo lagu ururiyaa 100 jir 90 jir 80 jir 60 jir 65 jir 70 jir halkana lagu soo turaa la iska keenaa sida caagada marka biyaha aad ka cabto soo qashinka soo iska tuuri maysid gaaladu mutaallim kasta cilmigiisa markay ka reebtaan ihsaan mala iyaku way qaadaan meelaha dadka duqaha gagabooba lagu xanaanayo iskaga tuuraan markaas aan ku yiri ilaa imsa ku nool waxay dhowr boqol oo duqaytiya halka ku jirta dhowr boqol oo duqaytiya hay dal mayna dhalin way dhaleen aawo dhashoodii 18 jir maalintay gaareen ba aabi hooyo ugu dambeysay adoo aabaha matuuri inaad aabahayo aad haysato ku faanto oo tiraadid aabahay baan u khidmeynaya sharafta waxa kuula diinta islaamka kuula ogow hooyadaayo inaad tiraado hooyaday baan haystaa oo u khidmeeya oo saxarada ka biiya oo habeenkii rogrogaayo seexiya waxa kugu wacan ee dhaqanka wanaagsan ku bartay ee waalidka inaad baar u noqoto ka yeeshay kana keentay waa diinta islaamka ugu diin la'aan xayawaanka qofku ku hooseeyo qofka bini aadamka markaasaan yaabe aabbahoodii hoodoodii halka ku soo tuureen waliba say aabba inay lahaayeen iyo hooyo ay lahaayeen u xasuustaan ayaa waxa loo sameeyay maalin la yiraahdo magaceega Mother Day iyo Father Day markaas waxay soo qaadaan ful ubax yar bay soo qaadaan wiilkii gabadhii ay dhaleen iyagoo labaduna ay wataan markaas meel muraayada u dhaxaysa markaas halka buu abi hooyadii ka salaamay u gali maayo salaami maayo dhunkani maayo cidiyaha ka guri maayo u khidmayni maayo hay inta yaruusi imiday meesha ayuu leeyahay waqti bay naga qaateen ba mid baa la ii sheego yiri kana ka shaqeeya ka Soomaaliga kii baan ku yiri inkaar qabe maxaa meesha ku keenay adiga hooyada abaarada madxarka ma idhiga oo guriga meel ka soo Soomaaliga la galay moogtaan hatta shaqada noocaas inay xaraanta dadku ma garanayaan qof gaala oo ilaahay garanin oo aakhira garanin oo asasaqay ina saxarada ka gurtaa waa rizqaasi waa rizq qurmuun weeyaan shariicada islaamkuna ma ogolo kii baan u yeedhay war maxaa meesha ku geeyay adiga lacag yar oo badan baa la qaatay biyiri la ilaahi wa inna bahaya la qaata war iskaga tag meesha kolkaas aan ku yiri bal shayga ugu cajab badan ee meesha aad ka aragtay ii sheeg wuxuu yiri qaar markay meesha ku dhaxanuunsadaan ee daawada loo bilaabo ee alla arka inay dhimanaynin qol wada muraayada oo sariir ay u dhex taalo lagu dhex rida qofka halkaas oo markaa galgalan markaas la nagu oranayaa shaqaalaha biyanaha sinina baadna hasinina hawada dushaabu ka neefsanaya halkaas laga yaabaa inuu 20 cisho 7 cisho 3 cisho oo galgasho iyagoo arkay markaa naftu halka bur ay ka tiraado silica bay ku dhimanayaan dadkii adduunka oo qoonteeda meesha sare ka gaaray waa dadkii Yurub ka dhigay baa sida u dhimanaya inaad adigu aad ka kaaweyn u naxariisataa ka kaayarna aad u naxariisataa ka kaaweyn aad ixtiraamtaa aabaha iyo hooyadaana biyaha aad qaado lugaha aad u dhaqdaa waxa dhaqanka ku siiyo ku bare waa diinta islaamka rida rabb fi rida alwalidayn bu nabigu alayhi salatu wassalam hadda dooni rabbiga inuu raalli ka noqdo
waalidkaaga raali geli buu rasuulku ku yidhi waalidkaaga raali geli idan mujtamac wanaagsan haddaad ku dhex nooshahay waxaad noqonaysaa qof markaa wanaagsan baad noqon saa darteed innaga maanta mujtamacyadeennan ku dhex nool lahay dadku 100% waa muslimiin waa gaalo odhan mayno waa muslimiin laakiin cisyaanka inagu badan diin la'aanta inagu badan salaad la'aanta inagu badan beenta inagu badan fisqiga inagu batay fujuurka inagu batay xumaantiiba inagu badatay zinadiiba inagu badatay caydiiba inagu badatay wixii shariicadu ay naga reebtay ayaa maanta mujtamaciina sidaa u dhex maaxaya marka ninka dhalinyaradu mujtamaca noocaasa inuu ku dhex hagaagaa waa mustaxiil way adag tahay laakiin maxaan samayn karnaa waxaan samayn karnaa mujtamacan inaan ka qabanno shaqo may maqlaysaan war may maqlaysaan inaan mujtamaca ka qabanno maxay shaqo inaan ka qabanno waan hagaajin karnaa mujtamaca waan bedeli karnaa dhallinyaradeenna maanta iyagoo dalkoogii jooga oo gaalana aynan dhex imanin ma abubakar iyo cumar bay ku daydaan mise john iyo bon bay ku daydaan waa isfahmina sooma yay ku daydaan bal sheeg gaalo uma iman gaalo magaalada burco ma dhex marmarto laakiin sawirka shaashadda aan ka aragnay ayaa ina bedelay maanta sidee lagu bedeli marka haddaad aragta muslim bedilan waxay ka dhigan tahay gudihiisaa maran oo waa faaruqo waxba kuma jiraan waa mobile bela simka sidaa daraaddeed waxaan u baahannahay war mujtamacan waa la hagaajin karaa mujtamacan waa la bedeli karaa waayo dadkeennu dad fog maaha oo la qayilaysaan maalin waa kan jamaacadku markaa khuruujka baxno waan jooglaynaa ma ogta mar alli markaan meeshay ku qayilayeen ugu gallaysna arkeen buu mid yidhi hanoo soo gelina halkiina iska jooga markaasaan ku yidhi maxaa dhacay asalaamu calaykum maxaa dhacay markaasuu yidhi dee ilaahay unbaad ka sheekaynaysaan maaha buu yidhi ha dee ilaahay waxbaba nama siin buu yidhi annaka caddaanku ilaahay wax siiyey maxaad ku odhan balkaa bal sheeg quus halkaa buu taagan yahay inuu yidhahda ilaahay waxba ima siinba baatilka ilaahay laba qof baatilka iskuma raacaan kuwii la qayilayo un baadhi war naga aamus bay ku yidhahdeen annaga khayrka doonne war khayrka annaga noo sheega haddaad adigu khayrka dhegaysanay naga baxun bay ku yidhahdeen shib uu iska aamusay uun hadalkii unbaa ilaahay nagu ilhaamiyey inaan ka sheekayno ilaahay cadamadiisa iyo nicamtiisa ilaahay waa inoo nicmeeyey dhulkan aan ku joognay isagaa ina siiyey cirka biyahan aad cabbaysaan baadkan aad cunaysaan gacantan aad wax ku qaadaysa ishan aad wax ku arkaysa dhegtan aad wax ku maqlaysa intaa markii laga warramay ninkii madaxuusadaa u qabsaday kol alle kolkii hadalkii aan dhammaynayn sii baxaynay buu yihi culumoy ilaahay dambi dhaafii weydiiyey ina saamaxa buu yidhi hadalkii haddeer aan lahaa shaydaan baa iga siiyey waa runtiin wax kastoon haysana ilaahay baa na siiyey buu yidhi war dadkeennu ma fogo waxay u baahan yihiin keliya in loo nasteexeeyo inay gabdhaha ku dadaalaan wiilasha ku dadaalaan maanta masaajidii tacliimtii baa inooga socota maraakistii baa inoo furan ijtimaacyadii baa la qabanaya dacwadii baa waddanka ka socota meel walba ummadda waa loogu tegayaa miigii baa loogu tegayaa magaalo loogu tegayaa meel fog baa loogu tegayaa meel dhow baa loogu tegayaa dadkaa wax lacaga laga dooni maayo waxaa lala daba socdaa waxaad liibaantaana kaale iyo diintiina qabsadoo ku dhaqma